dalka joogo dhammaantood meel kastoo joogaanba waar wixii shalay Soomaali ka soco waayey maanta Soomaaliland ma ka soconaya war ma waxa soconaya lima taquluuna ma la tafcaluun bi ilaahi war ma waxaad oranaysaan iyo waxaad sameeynaysaa way kala duwayn ilaahay baa yidhi atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusahum wa antum tatluna al-kitaba fala taqilun habeen walba rag baa ka sheekeeya wixii Soomaali kala irdhay yaday maanta Soomaaliland dhexdeeda taalo halkeed adu qof ma tahay maana damiir lahayn maana garanayn halkaad shalay ku jabtay maana qof mu'min ahayn haddii shalay Maxamed Siyaad iyo dawladdu hogaaminayay qoys lagu xeeray mashaariicdoo la qabiileeyay awoodii qaranko cid kaliya wada qaadatay oo burburtay tani mayna u burburayna u dhimaynay haddaan la hagaajinin ragga qaar baa meelaha yidhaahdaan saaxiibnahay Soomaaliland waa muqaddas waa been wax muqaddasa kitaabka Ilaahay un baa jira Soomaaliland waxay ku dhisan tahay doonista iyo rabitaanka dadka reer Soomaaliland bay ku dhisan tahay haddii qayb ka mid ah la waayo Soomaaliland waa la waayaa horta taa la ogaado dantaanu ka hadlaynaa halka kaga hadlaynaa ma ta reerkayga iyo ta gobolkayga iyo ta qabiilkayga ma taanu kaga hadlaynaa waa ta Hargeysa la isku haysto waa ta Burco la isku haysto waa ta Ceerigaabo la isku haysto dhiig ku daadanaya weey waa qadiyadii ummaddu wada lahayd oo koox gaar ah ku tagrifayso weey caawa haddii golaha amniga ee qaranka la iskugu yeedho qoys kaliya fadhiya aniga cidbayga ma fadhidaba in la idinayo iyo in la igalayo maxaa war ugu haya haddii la caawa hay'adaha wax soo saarka iyo maaliyadda la soo fadhiisiyo aniga cidbayga ma fadhidee cashuurta aan bixiyo sida loo xisaabinayo sida loo qaybinayo maba ogiye maxaa ku qanacaa waliba waxaan ogahay sida loo qaybiyey war ma waxaad aragtay gobol dhan oo miisaaniyad 300 milyan ah 20,000 iyo 150,000 iyo lagaga soo celiyo ma saasaan aqbalnaa waa ma nololba inagoo kaliya ma qabnay dad kala qaba kuwaana waynu gurmanaynaa waxa la yidhi qof waxa la yidhi walaalkaa u gargaar markuu saxsan yahay markuu gardarayayna u gargaar baa la yidhi rasuulku calayhi salaam waxa lagu yidhi seen ugu gargaarna markuu gardaran yahay waar waxa la yidhi gacanta ka qabo walaalkaa markuu gardarayo dulmiga joojidhe dee gacantaynu qabanaa soo maaha walaalayaal qodob kalaa ku daraya maanta kuraasida dalka un lama kala qaadanin waxa la kala qaatay mashaariicdii dalka iyo lacagtii dalka soo baxda ayaa cid gaara maxaa la yidhahdaa loogu raray loogu dhisay loogu qalay xoolaha waxa si gaara oo xaafadaysan oo qadiyadaysan loo qaybiyey mashaariicdii beesha caalamka timid wallaahi oo bilaahi oo tallaahi baan ku yidhi haddaad og tihiin ood wax yar ka og tihiin maydaa fadhideen booramiya halkaad joogtaan war ma waxa dhacay sagar halkay ka dhacday in maad ehriyaan ma dalkoo dhan bay ka dhacday soo masiibo rabbaaniya mayn wixii sagar ay gaalada ku bixisay ee halkan lagaga dhawaaqay rays ee dawladda Soomaaliya milyankay soo bixisay miyaad aragteen meel ay marayaan si qabiilaysan baa loo qaybiyey waxa laga qaybiyey degmooyin aan dhibaatadaas ka dhicin ilaahay oo ku ridin baynu leeyahay horta dhibaatada war ninka dhibaato dhacday u quuri waayay wixii loo soo qaybiyey dadka ee ku dhacday ma kuwa caafimaad qabo ku siinaya war mid baan ku soo gabagabeynaya waxa weeyaan noloshu waa halgan cadaaladda iyo wanaagga doonayso fadhi laguma helo mana dhici karayso in shaqaale la soo qorsheeyo fiican maaliyad la soo qorsheeyo fiican xilal la soo qorsheeyo fiican nolol fiican inta kaado lagu soo xidho ee baabuur fiican la soo saaro la keeni maayo boorama la keeni maayo saylac la keeni maayo dila la keeni maayo looya caddo iyo qunijeed la keeni maayo laakiin maxaa la keenayaa waxaad soo ridato wey waxaad ridato dadka yeena mid qodobna ogaada nacayb yaana idinku abuurin tabashada iyo waxaad rabtaan ee wanaagsani waayo dadkan waxaan haystay reer isaaqay gada bursigu yidhahdaan waar isaaqa laftiisa qaar wax wanaagsan rabaa ku jira kuwa wax fiican rabaa ku jira cadaalad doonaya waa la muquuniyo hiil bay waayeen kuwa aynu iskaashano aynu cadaaladii soo saarno soo taasi danta dalka ma soo maaha in maanta adduunyada xogaal bawtiin
dawladdii tigreega weynada halka fadhiday ee iyadu qaadatay kuraasidii ee maxkamaddii qaadatay ee lacagtii qaadatay ee telecommunicationkii iyadu xukuntay ee maxaa la yidhahdaa bariiska iyo tamaandhadii dalka laga beeray iyadu qaadatay qori laguma ridin xabad laguma ridin jabhad laguma ridin maxaa lagu riday waar cod shacab baa lagu rido dad baa bannaanka u soo baxoo yidhi sidaasi nama anfacdo way dhacday cumar xasan albashiir oo taangii ugu adkaa isku wareejiyey baa la riday ragga nabadgelyada laguma ilaaliyo xoog nabadgelyada 30 sannadood jirtay waa kan cabdillaahi raggii ka shaqaynayay way joogeene arrin baa lagu dhiso nabadgelyada waxa lagu dhisaa cadaalad baa lagu ilaaliyaa waxa lagu ilaaliyaa wax wada lahaasho waxa lagu ilaaliyaa in waxa ummadda ka dhaxeeya loo ilaaliyo nabadgelyada lagu ilaaliyaa laakiin qori laguma ilaalin karo waxaan ku soo gabagabeynayaa waar movement kan bilaamay waa mid ka duwan kii awalkii hore jiri jiray kii hore wuxuu ahaa odayaal shir jaraa'id qabta oo hudheel fadhiista oo la yidhaahdo may hadleen iska calaacalaan oo masaakiina iska calaacalaan waxa weeyaan waa la isku soo gaadhay waxa weeyaan wanaaggii dalkan baa la doonayaa haddii ay cid gaari yeelatana cinjirka labada dhinac lahayo dee soo uma sii daynown aad iyo aad baad u mahadsantihiin